tuugayga noloshana ciidan uga dambeeyo ina doorkan laytan duruufii dhacay baray tuugayga noloshana ciidan uga dambeeyo ina doorkan laytan duruufii dhacay baray طمعي هناسيو تغماها نولشي طمعي هناسيو تغماها نولشي نينك تاترسني دبولغ عن دوفتو دبناعي الرمزدو نينك تاترسني دبولغ عن دوفتو دبناعي الرمزدو كان درس وناقيو إنا لبدل نقنيو سموه آنو ديقنو وحبا هيدر داروري طنيبا ويركو يلسين كان درس وناقيو إنا لبدل نقنيو سموه آنو ديقنو وهيدا نيني إركسر برسودمي sida aad u wada ogtihiin halkan waxaa ka baxay wafti uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo u kicitimay dalka UAE United Arab Emirates waftigu wuxuu martiqaad rasmi ka helay dawladda UAE ama United Arab Emirates waxaa madaxweynaha iyo waftigiisa qaabilay wafti ama mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah dalka Imaaraadka Carabta wasiirka madaxtooyada ee dalka وزيرك أمنية National Oil Company أبو دبي إنك هايستا إيوه لإنك Chamber of Commerce كهايستا دالك UAE هدي أنت هالك أكون رافو دالك وحانو هدانو نهاي وفتي ماشي كتجي وحكا وحانو لا كلنا مدح عادو فربضن أو أي كم ديهين kuwa aan soo sheegay iyo hadii aan ragada ilowsanahayba waxaan oran karaa waa waqtigii ugu haboonaa ee Soomaaliland abid ay si dawladnimo ah oo maqaamada qaranka madaxa banaan lagu qaabilo baana ku qaabilay wax kasto oo aan u dhiibanay iyo codsi kasto dawladda loo gudbiyayna way naga aqbaleen waxaad ka garanayseen sida naloo soo dhaweeyay iyo sida naloo qaabilay ixtiraamka iyo raggu sidoo waftigu isaga daba iimaanay qaranka Soomaaliland haday noqoto mid dhaqaale iyo haday noqoto mid security iyo haday noqoto mid social service iyo haday noqoto mid ganacsi intaba marxalad macna leh oo dawlad ila dawladda baanu isku afkaranay wixii hawla na waxay ku bilaamayaan qaabkii dawladnimadu u bilaami jirtay oo ah in mid kasta waqtigeeda iyo goobteeda implementationskeeda uu qaato maalin aynu qaran ahaan ka adagnahay oo ka saaxiib fiicannahay oo ka runtii niyo wanaagsannahay iyo wax la filayo oo aanu islaahay muddadii aad Soomaaliland 26 ka sanadood ee aan joogay ee aan ka soo shaqeynayay
ووقتي igu farxadda weynaa ee aan la kulmo waxaan aan maanta la soo kulmay oo kale aniga iyo waftiga uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda gudoomiyaha xisbiga ucid Faysal Cali Waraabe wasiirka qorsheynta qaranka Awaale wasiirka dhalinyarada Boos wasiirka dastuurka iyo golayaasha qaranka dhammaantood waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu ku soo noqono ciidii Soomaaliland annagoo sharaf iyo guul iyo barwaaqo iyo baraare iyo sharaf bahuwan oo dadka Soomaaliland gacanta ugu hayna waxay ku farxaan waxaan leeyahay kuwa ka daba qaylinaya Soomaaliland hadallada aan munaasibka ahayn meelaha kaga hadlaya dalkani waa dal dhaqaaqay waa dal hore u socday waa dal isku tashaday waa dal saaxiib leh waa dad aan soo noqonayn wadadu uu cagta saaray halhayska qarniga iyo halhayska sanadkan ee dawladda uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi waxa la yiraahdaa hore loo soconaya dib cid aanu u eegaynaa ma jirtay qaranku uu dhaqaaqaya waxaanu leenahay saaxiibo aanu ku kalsoonahay oo na garab taagan oo aanu ku faraxsanahay waxaan mar labaad ammaan sharaf karaamo qiime qiyam huwinaya dawladda aanu namarti qaaday waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu idin leenahay hadaa dadkii Soomaaliland tihiin qalbigiina wanaagu sheega waxa aanu ku faano oo ku faraxno oo aad idinkuna ku faantaan oo ku faraxdaan baanu kala kulannay dhammaan goobihii iyo meeshii aanu tagnay waana arrin aanu calooshayadu ay runtii dawladda iyo dadka iyo deegaanka u xaaran tahay idinkana waxaanu idinka codsanaynaa inaad dadka Emirateska aad si gaar ah u xusuusataan oo caloosha ku haysaan mahad subhanahu wa ta'ala ilaahay rasuul nabad caliya mahad leh oo idin sheegay wasiirku magaranaysa ee dadkii iyo casuumadii iyo dadkii la kulmay waxaanu markii ugu mahad celinaa madaxda Imaaraadka sida sharaf la inoo qabtay waxa weeye kulli waxa jeceshin maxaa maqaam saruma sheegteen ina wixii la soo jeceshin baahidii way badan tahay aad iyo aad u baahan tahay wadan marka soo koriye inoo soo baxaynahay waxa inagu daray waxa weeye arrimaha dadkeena ku wareegay baasaboorka xoolaha oo la joojiyay nabadgelyadeena amnigeena dhaqaalaheena waxaan ku haynaa war fiican alxamdulillaah rabbil caalamiin baasaboorkeena waa la ogolaaday insha Allah taala waxaan jecelahay haddii marka Imaaraadku ogolaadaan inuu khaliijku dhan ogolaan doono oo furiyay waa halkan ka gelinay xoolihii waa la ogolaaday Imaaraadku hadda bilaabayaanba wasi 2 days inay iibsadaan Sacuudigana way ka hawlgeliyaan isna dhaqso bilaabaya hadda la yiraaho wax u weyn oo dalku ay ku jira waa amniga haddaan amni lahayn nabadgelyo jirin xuduudaheena secure ahayn iskuul ma dhismayo uma waariyo isbitaal ma waariyo barnaamijyo ma waariyo xagaasna way naga caawinayaan waa ta keentay in loo yeero taliyaashii nabadgelyada inoo joogay booliiskii militarigii badii iyaguna way ku maqan yihiin technical teamkii baankii xagga dhaqaalaha subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala dee run iyo beentii buu kala saaray habeen iyo maalintii buu kala saaray Soomaaliland inaan ahayn wax gacan lagu qarin karo oo la qarin karo Soomaaliya way kala baxeen dal jiriya dal aan jirin yahay way kala ogaadeen dad lagu soo hagaagi karo oo la aamini karo iyo dad aan la aamini karin oo maxaa inta uu ka shaqeynaya qaran u jeedin waa la kala bartay way ogaadeen xiriirkii Soomaaliyeed ay sheeg jireen in inagu aynu ahayn dad kale macaamili jireen way qareen iyagoo mashiidaa lahayn dadkeenu gacan ka geliyeen horumarka dalkaasi xiriir soo jira lahayn ilaa muqoomadeena way ka sheekeynayaan in muqoomad loo keeni jiray dalkeena
kii lahaa kii reer beledweyne lahaa waxbaanu siin jirnay beledweyne miyaa badba leh waxay ku arki jireen doonyo wax iman jireen berbere marka waxa weeyuun khayraadka inoo yimi inaan midnimadeena muujino aan wada gorano ka baxna qabiilka ayaa weeye anigu markaan raacnayna waxaan tusinay in loogu dhan yahay saddex xusbiba ay go'aamada iyo heshiiska la wada ogol yahay yaanu taasan ka markhaati kacayay baarlamaankii waa kiisna ogolaaday inay Soomaaliland dhan u duuban tahay oo wax ka soo horjeeda arrintaasi waxaan social media lagu qorqoriyay waxba ka jirin taas oo soo xaqiiqareynay de waxaan filayaa inaynu waxyaalo badan ay isku keen wareeriyay wuxuu ahaa un dhaqaale xume dhaqaalo inoo imadoon kala foofi doono ayaan filayaa insha Allah taala qof kasta hawshiisa qaban doono siyaasadda intii siyaasadda wadi doonto aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mar kale waftiguna si fiican baa wada shaqeynayeen dee diyaar garooba oo yaanay khalkhalin haddii aan idhaa markaa khayr iyo ilahay ka rajeyna subxaana wa tacaala in ilaahay nabaddaas inoogu waaro